sida dawladdu ay tiri shirkii macnaha raggaas burburi ay tiri adaa garsoore ah adaa meeshii fadhiyay marka madaxweyne adaa ummaddu ka sugaysa inaad sheegto shirkii waa taas waa lagu kala tagay iyo shirkii caadi oo noogu dhamaaday adaa laga rabaa madaxweyne shirkii wixii uu ku dhamaaday iyo sidoo ku dhamaaday arintaas waa nagu soo laalaabatay waan dhig marar badan runtii dadka sida loogu sheegayna waxyaabaha adiga tani aad isku diidanaydeen oo shirka waliba dhaawac weyn u geystay sida la sheegay maxaa kamid aha aniga iyo dani waxaan ugu ogolayn ajadaan lama geli karo adigu ma taageersan tahay mise ama ka soo horjeeda in madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo awoodiisa siyaasadeed iyo la cadeeyo maadaama uu la leeyahay waa musharax ma taas ma aaminsan tahay waxna ma dhimi karo waxna ma dheersan hadduu awoodiisa dhimi karo macnaheedu waxa weeye waxaad moodaa in laba aragti laga kala qabo oo la leeyahay xilligaas oo dhexdhexaad ahaa laakiin xilligan farmaajo isu dhiibay oo wixii uu yiraahdo unbuu maqlaa ma isu aragtaa noocaas madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo haddii uu murashax hadda waa un sheegay joogtaa uu murashax noqdo banaanka soo istaago murashaxiintu iga mid in la yiraahdo bal si doorasho hal qof iyo hal cod loo gaaro inuu baarlamaanku extension ama muddo kororsi in uu sameeyo arrimahaasi haddii ay dhacaan ma taageeraysaa waxaan maqlaa markasta midowga musharaxiinta iyo maaragtay senatarada iyo xildhibaanada ka soo jeeda galmudug inta badan shirar bay kula qaataan ayagoo saluugsan siyaasadda adigu ay u arkaan inay macnaha dhinacan dawladda ay aad ugu rarantahay u arkaan mar walbana waan maqlaa iyagoo dhahaya orniyahow qoorqoor meeshii uu noo doodi lahaa ayaa axmed madoobe ayaa dani ayaa noo doodaya coalition bay la samaysteen adoo taagan ayay isbaxaysi la samaysteen arrinta noocaasoo kalaa soo foolxumo kuguma ahan adigoo madaxweynihii dowlad goboleedka galmudugga dadkii iyo madaxdii iyo kulligood in ay ku biiraan isbaxaysi inay ku biiraan taas see kugu dhadhamaysaa horta adiga sidaa rabta u dhig dadkan waa dad siyaasiyiin ah Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier